بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحبي الكسود هذا 10 كي أفراد برشة كمبيوترك 10 كي أفراد دول يرادوا حكوا قادم دونا قضبة مهمة أو أي كمديهين وحلو يقانو تاسكي بار أما how to use تاسكي بار 10 كي سدحاد وحنكسو قادنا سيد الله استعماله وحلو يقانو start menu 10 كان وحكوا قادم دونا سيد الله استعماله تاسكي بار waa calaamadan dheer ee computerka qaybtiisa hoose ku taala calaamadan dheer ee applicationaduna saaran yihiin saacada iyo network internetka iyo waxa la yiraahdaa iyo fariimahana ay ku soo dhacanaya waxa loo yaqaanaa taski bar marka taski bar iyo sida uu shaqeyso ayaa casharkeena ku baran doona haduu alla yiraahdo insha Allah soo dhawaada waayahay taski bar hadaba maxaan ka faa'iideynaa wax loo yaqaano taski bar waxaan soo sheegnay in uu ka mid tahay waxyaabaha ugu muhiimsan ee computerka laga barto marka aad doonayso inaad computer barato waxa la yiraahdo taski bar is the area at the bottom of the window desktop qaybta ugu hooseyso ee computerka windowga ama computerka desktop ama laptop wax uu doono ha ahaade qaybtiisa ugu hooseyso ee calaamada iconada iyo applicationadu ay saaran yihiin ayaa waxa loo yaqaanaa desktop sidoo kale iconiska on the desktop can represent frequently used programs open programs and open documents waxa la yiri applicationada saaran ama softwareda saaran desktopka waa taski barka waxa ay inta badan matalayaan ama ay xaqiijin inay yihiin kuwa inta badan loo isticmaalo ama applicationada furan ama dokumentiyada markaas furan halkan oo kale waxa inooga furan dokumenti waxa loo yaqaano PowerPoint oo casharka aan sharxayo dokumenti ku saabsan sidoo kale waxyaabaha halkan inoo saaran waxa kamid waxa loo yaqaano Mozilla ama Telegram ama waxa la yiraahdo calaamadii folderka iyo calculatorka kuwan oo dhan waa application saaran shaashada qaybta taski barka ee computerka marka sidaas darteed waxaan isla fiirin doonaa qaab practical inaan iskula fiirino taski barka iyo sida uu u shaqeeyo waayahay taski barka sida uu u shaqeeyo ayaa fiirin doona markaan taski bar waxaan soo sheegnay in ay tahay ushan dheer ee computerka markaasi uu ku shaqeeyo ushaas dheer ayaa waxa loo yaqaanaa taski bar usha dheer ayaa waxa loo yaqaanaa taski bar ushan marka waxay ka kooban tahay qaybo kala duwan qaybtan waxa loo yaqaanaa notification bar waa qaybta ay fariimaha ku soo dhacaan network internetka iyo waxa la yiraahdo fariimaha notificationada ay kugu soo dhacayaan qaybta saacada iyo taariikhda ku sheegayso iyo weatherka cimilada qayb ku sheegayso iyo waxyaabaha la midka qaybaha kale ee ka koobanta waxa kamid dhammaan waxyaabaha halkan inoo saaran oo in ay inoo matalaan applicationada markaas aan isticmaalayno oo kale halkan waxa inoogu qoran ama Camtasia 9 waa applicationka aan softwareka markaas ku duubayo casharka sidoo kale waxa halkan iyadana saaran calaamadii Telegramka oo applicationka Telegramka oo iyadana halkan aan ku soo dhaweystay sidoo kale waxa ku jira Mozilla iyo calculatorka iyo applicationo kale oo muhiim oo aan halkan ku soo dhaweystay si aan u isticmaalo marka qaybtan u hooseyso ayaa waxa loo yaqaanaa taski bar marka aad rabto inaad taski barka dhaqdhaqaajiso meesha aad rabto ay geyso oo aad ku sameyso waxa loo yaqaano jiiditaan waxaad sameyn kartaa calaamada falaarta bidix ee muuska ayaad ku riixaysaa meel bannaan oo taski barka kadib waxaad u jiidaysaa halka aad rabto kor hadaa rabto kor geysan kartaa hadaa rabto dhinaca geysan kartaa hadaa rabto dhinaca kale geysan kartaa midig iyo bidix iyo kor iyo hoos meesha aad rabto ayaa taski barkaada dhiga kartaa sidoo kale waxaan sheegnay in taski barka markaasi aad u baahdo inaad ku sameyso resize inaad qaban karto oo aad kor u jiidi karto adigoo ku sameyn kara resize ama jiiditaan si markaasi aad uga dhigato ama aad u weynaysato ama aad u yareysato iyadoo shortcutna way jirtaa oo qaybaha dambe ayaan kula wadaagi doonaa hase yeeshee casharkeena afraad ee barashada computerka halkaas inoo joogo